بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaaleyga qaaliga inaadka u jeclahay soo dhawaada kusoo dhawaada channelkeena caafimaad channel. Haddaba waxaad horey nooga barateen barnaamijyo caafimaad oo aad u xiiso badan, midba midkuu ka dambeeyana ka faa'iido badan yahay. Maanta waxaan idin wadaa liin dhanaanta iyo 13 faa'iido oo laga helo marka lagu daro biyo kulul. Haddaba ka faa'iideysi wacan oo la socod wanaagsan insha Allah. balse intaan u guda galin cashirkeena waxaan si naxariis leh idinkaga codsanayaa haddaad nagu cusub tahay inaad subscribe-ka noo saarto, like, share iyo comment-na waa dhankiina. Haddaba faa'iidada koowaad ee laga helo liin dhanaanta markii lagu daro biyo diiran ama biyo kulul. Liin dhanaanta waxaa ku jira vitamin C oo xoojiya habdhiska difaaca jirka. Faa'iidada labaad, liin dhanaanta waxaa ku jira protein fiber oo faa'iido weyn u leh caafimaadka mindhicirka weyn, sidoo kalena bakteeriyada la dagaalamaya jeermiska. Faa'iidada saddexaad, aroorta hore oo la cabo biyo diiran ee lagu daray liin dhanaanta waxay jirka ka saartaa sunta. Yacni liin dhanaanta markii lagu daro biyo diiran waa antioxidant oo jirka waxay ka saartaa sunta. Faa'iidada afaraad, liin dhanaanta waxay daaweysaa qabowga. Waxay daaweysaa dadka qabowga qaba ama hirgabka. Faa'iidada shanaad, liin dhanaanta waxay caawisaa dheefshiidka waxayna yareysaa laab-dilaaca iyo dibiryada. Faa'iidada lixaad, liin dhanaanta waxay yareysaa macdanta potassium ee ku jirta liin dhanaanta waxay nafaqeysaa unugyada maskaxda iyo neerfayaasha. Liin dhanaanta waxay u wanaagsan tahay unugyada maskaxda iyo neerfayaasha. Faa'iidada toddobaad, cabista biyaha liin dhanaanta waxay isku dheelitirtaa heerarka pH-ka jirka. Yacni jirka ayay isku dheelitirtaa enzymeskiisa ayay isku dheelitirtaa jirka. Faa'iidada sideedaad, liin dhanaanta waxaa ku jira xaddi aad u sareeya ama size aad u sareeyo oo vitamin C ah, kaasoo gacan weyn ka geysta kicinta iyo sifeynta beerka iyo inuu sunta ka saaro. Liin dhanaanta waxaa aad uga buuxa vitamin C kaasoo shaqadiisu ay ka mid tahay inuu beerka iyo jirka ka sifeeyo sunta. Faa'iidada sagaalaad, liin dhanaantu waxay hodan ku tahay vitamin C saan hore u soo sheegaba oo hoos u dhiga laalaabka maqaarka. Vitamin C wuxuu dhalaaliyaa maqaarka, wuxuuna dilaa bakteeriyada dhalisa finanka. Vitamin C-ga maqaarka aad ayuu dhalaaliyaa, qofka midab furan ayuuna siiyaa. Faa'iidada tobanaad, liin dhanaantu waxay carfisaa afka, waxayna yareysaa ilka xanuunka iyo yiridka. Haddaad ogtahay iyo haddaad ogeynba liin dhanaanta waxaa laga sameeyaa barafuunada. Barafuunada maanta lacagta qaaligana laga siiyo waxaa laga sameeyaa liin dhanaan oo joogto 1 shilin. Haddaba ka faa'iideyso oo ku carfisa afkaaga. Faa'iidada 11aad, biyaha liin dhanaanta waxay hagaajiyaan caafimaadka indhaha. Indhaha ay u fiican yihiin iyo aragooda. Faa'iidada 12aad, cabista biyaha diiran ee lagu daray liin dhanaanta waxay hoos u dhigaan miisaanka jirka. Liin dhanaanta markii biyo diiran lagu daro oo la cabo subaxdii markay calooshaada maran tahay waxay hoos u dhigaan ama waxay yareeyaan miisaanka oo waa la isku caateeyaa. Isku caateen ayaa loo isticmaalaa. Faa'iidada 13aad, waxaad u baahan tahay koob biyo diiran ah oo liin dhanaan aad ku darto 1 xabo ama 2 xabo kadibna aad cabto. Koob biyo diiran ayaad ku dareysaa 1 xabo ama 2 xabo oo liin dhanaan ah kadibna waa cabaysaa oo qaabkaas ayaa u isticmaaleysaa. Insha Allah ka faa'iideysi wacan. Liin dhanaanta faa'iidooyinkeeda lama soo koobi karo. Sunta ayay jirka ka saartaa, maqaarka ayay dhalaalisaa oo liin dhanaanta waa vitamin C. sidoo kale afka iyo ilkaha waa lagu carfiyaa. Faa'iidada liinta ma aha wax la soo koobi karo. Barafuunada iyo waxyaalahaasna ayadaa laga sameeyaa liin dhanaanta. Sidoo kale maqaarka aad ayay u cadeysaa liin dhanaanta, jirkana sunta way ka saartaa. Vitamin C-ga aad ayuu jirka ugu muhiimsan yahay af burburka, xitaa biijada iyo waxaas dadka qabaan iyo af burburka. Dadka faruuryaha daldalacaan aad ay ugu wanaagsan tahay. Walaalahayga qaaliga waa mahadsantahay waqtigaada quruxda badan ee gelisay. Hadday ugu cusub tahay fadlan subscribe-ku waa noo muhiim. Gambaleelka wuxuu kaa caawinayaa video walba soo dhig inaad la socoto insha Allah. Ka faa'iideysi habboon, share iyo comment waa dhankiina. Assalaamu calaykum.